What's up guys? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waa Shakuur Rashiid iyo markale video cusub ku soo dhawaada. I know waan ogahay inaan ninka mashquulin badan oo in badan aynu kala maqnayn, laakiin wax fiican baan idin soo wada hadii la yiraahdo. So stay tuned marka taala socda. Maanta si degdeg waxaan rabaa inaynu bal yani waxaan ku suganahay meelaan meesheedii hayn saad arkaysan studio kale meel kale jooga oo setup kan iyo hawlahan wada arki doontaan inta doona. Marka maanta videogeenu waxa ku saabsan yahay how to light interviews. Marka dad jeclaan lahayd lightadku bal sida interview qurux badan oo professional adigoo meel kasta aad joogto hadda doonaysa inaad duubto stay tuned ila soco waxaan rabaa marka job shadows ka caadiga ah sidaan imaka practical aan idin tuso sidaan oo wuxuu ahaa u duubayo ama basaasan lightadka iyo waxyaabaha uu hagaajinayo video kooban buu ahaan doona marka in badan oo iga maqnaa awgeed ayaan rabaa bal inta aan aqoonta hadii la yiraahdo inaad idinku la faa'iidaan marka ila socda marka waxay la duubayo maanta rabaa inaan interview ka duubo صاحبك عدنان أستاذ عدنان وأنا صاحبك يا مركب فيديو ما تحكي سبسين cinematography وحويان is all about lighting وأنا lighting كان حاجة so scene كان حتى بقى صدق شيء ومهم سن مركب lighting كلاقي عمل صدق light أيال استعماله صدق light وصدق ما أنت استعماله صدق light وحلا كلا يقانا key light iyo fill light iyo backlight waa saddexda ugu muhiimsan key light waxa weeyaan halka yani source-ka main source-ka oo light-ku kaaga soo gelayo ee aad subject-kaaga ama talent-kaaga waxa weeyaan qofka yani aad ka duubso wax toos ugu soo dhaco ayaa la yiraahdaa key light fill light waxa weeyaan waxa uu support gareeyaa key light-ka waxa weeyaan ka dhinaca kaaga soo dhaca talent-kaaga oo dabada dhanka aad kaga duubiso mar walba iftiiminaya ama highlight-ka ku sameynaya ka saddexaad waxa weeyaan backlight-ka mid loo yaqaano backlight-kana muhiimadiisu waxa weeyaan in uu extra yani light-kaas iyo dhanka shadow-ga sida oo kale qodobka labaad waxa weeyaan inuu background-kaaga subject-ga ama talent-kaaga hore uga soo durkiyo oo dabadna sameeyo maxay waxa loo yaqaano depth depth-guna waan garanaa waxa weeyaan in background-kaaga iyo subject-kaaga ay distance u dhaxayaan ama bas ay yani cabir kala duwan ay kala yihiin marka subject-kaagana waxa uu ka dhigayaa ama video-gaaga wuxuu ka dhigayaa oo dhan 3D yani subject-kaaga ama talent-kaaga ay duubano qofka aad ka duubiso 3D buu ka dhigayaa 3D-guna waa maxay waxa uu kaaga dhigay mid aan flat ahayn flat-ka naqaana waxa weeyaan sawirta imka dan qashaafada isticmaalo kaliya oo yani ay say u soo dhacdo kaliya video wax noqonay mid normal ah background-kan iga dambeeya iyo anigu wax separate ma kala yeelanayno laakiin se haddaan yani kala light-ka kala duduwo on dhinacyo kala duwan dhigo oo dabadna highlights-ka iyo shadows-ka labadaas ayaynu ku ciyaaranahay labada aynu ka shaqeysino sida ugu fiican aynu habayno oo dabadna wax noqonaya 3D subject-geenu 3D buu noqonaya subject-geenu ama video-geenu marka saddexda light ayaynu isticmaalnay waxa weeyaan key light waxa weeyaan fill light iyo waxa weeyaan backlight marka koowaad aynu gal hadaba sidii aanu sameynay scenario ama scene kan aynu sameynay kadibna aynu kaga keenay nooca markii hore aynu tabino nooca kaga dhignay markii dambe okay marka koowaad saad arkaysan waxa meesha yani light yaalo oo dhan damsan yihiin oo room-ka uu madow yahay subject-geenu halkaas u fadhiya marka subject-geenu ama talent-geenu waxaad arkaysaa inuu yani meesha ay tahay meel madow oo figure madowna uu fadhiyo maybe marayd buu gashay waxaad moodaysaa inaad yani yar khaqbad moodaysaa horror oo kale ka baqanaysaa marka ka baqanina marka koowaad marka waxaan isticmaalnaa qodobka koowaad oo ah in yani room-ka aad ku jirto mar walba aad raadiso source light-iska uu leeyahay sababtoo ah dee qol madow kuma jirtid daaqadu leeyahay albaabuu leeyahay light yar buu leeyahay dee dadku ay ku iftiimaysadaan wax caadiga kan ka soo laalaada ceiling oo kale kuwaas ayaad marka hore isku dayaysaa horta ballan isticmaasho dabeedna markaas aad ku dari doontaa adigu wixii light-ka side-ka haysay okay markaas aynu ogsoonahay albaabuu leeyahay qolku waxaan u leeyahay sidoo kale bulb-ka yar light-ka yar ka soo laalaada ceiling-ka marka waxaynu doonaynaa inaynu labada marka koobaad ka shaqeysino marka waxaanu shidi doonaa light-ka halkaas ceiling-ka ka soo laalaada kadibna waad arkaysaa horta inaad kala garatay wixii meesha fadhiyo bil aadan yahay inuu wax kale yahay waad kala garatay alright kaaka ku xiga waxa weeyaan inaynu isticmaalno albaabka deg daaqadihi nooma dhawa laakiin albaabka ayaa light farbadan nooga soo gelaya marka halkaas aynu ka isticmaalnaa natural light-ka marka albaabkeenu furna aynu kana albaabka marka furno waxaad arkaysaa inuu dhanka bidix uu kugu sameeyay highlights ama bas iftiinkaas oo markii hore yani dee aad arkaysiin madooba imikana dhanka bidix oo kaliya kugu sameeyay dhanka midigna uu madow yahay marka fill light-kii waan kan sababtoo dhinac buu ka imanaya waxaynu ku xigsiinaa ka saddexaad oo ah inuu hadaba u galo artificial keenno inuu isticmaalo light-kii sababtoo ah waxaan isticmaalnaa qashaafadan kadibna waxaan soo dhigaynaa about 45 yani ayaynu soo dhigaynaa cabirka ah korna waynu uga qaadanaa marka subject-geena 45 baynu uga qaadanaa korna waynu qaadanaa si uu dabadna key light-kaas inoo soo gaaro key light-kaas marka imka wuxuu sameeyay saad arkaysaan wuxuu iftiimiyay isaguna highlight-iskii ma dhankii bidix maaha dhanka intaas sanka ilaa iyo dhanka midig oo inta indhaha ay arkaysaan inuu yani iftiimiyay isaguna marka waxa weeyaan
main light halkaas uu nooga soo geli karaa imka hadii iska xidhno fill light-ka wuxuu noqon doonaa key light-ka kaliya isticmaalno waa inuu filan laakiin saanin soo sheegay cinematic noqon maayo video-gaagu ama 3D noqon maayo marka waxaan isticmaalnaa qashaafadaas oo soo dhignay 45 oo inuu korna iskaga dalacnay ama inaan la simin mar walba talentiga ku duubinay haddaba dhanka imka aynu highlights-ka inaga ah iyo halka shadows-ka ka asaad arkaysaan dhanka highlights-ka waxa ku sameeyay qaybta bidixda waxa iskugu tagay laba waa key light-kii iyo waxa iskugu tagay fill light-kii qaybtan midigtuna waxa weeyaan asaad arkaysaan waa madow markaas si qaybta madowga ah shadows-ka aynu uga khafiifino talentigeena oo yani kala leer yar oo kala aynu ugu sameeyno light kale waxaynu isku daynaa inaynu isticmaalno qaybta loo yaqaano backlight-ka waa halka backlight-ka marka ka ciyaaro door muhiim ah ka qaato marka backlight-kii baan halka soo dhignay ring light-kan yar waxaanaynu isticmaalnay colorka loo yaqaano orange marka orange-ka iyo teal-kuna waxay yihiin labada shay ee sameeya cinematic colorka marka la eegayo video-ga sameeya marka waxa weeyaan teal-ku waxa weeyaan blue-gaas aad arka ka arkayso waxa ku cagsiya oo mar walba ka soo jeeda color wheel-ka haddaad eegto waa orange marka labadaas ayaa la isticmaalaya marka backlight-ka isticmaalna waa orange saadalkasana kan waa yellow laakiin saasa orange ahaan baan idinku tusaya marka orange colorkiisu yahay ring light-ka ayaynu dhanka midig ka soo dhignay talentigeena si uu iftiimiyo oo iftiin yar ugu sameeyo qaybta shadow-ga kama wada saarayo oo inaynu ka wada saarno maaha laakiin se in yar oo iftiima ayuu ku sameeyaa orange marka markii hore sidaas uu ahaa markay shidnayna noocaas ayuu noqday haddaba waxa soo kordhay oo isaguna imka jira saxaabta waxa loo yaqaan shadows halka iga dambeeya ah yani halka talentiga ka dambeeya waxa arkaysaa shadow haysta shadowskaas soo kordhay marka shadowgaas aynu uga saarno oo yani ama aynu uga khafiifino waxaynu isticmaalanaa light kale light-ka haddaba light-kaas wuxuu noqon doonaa any light kasta oo haysan karto noqon karaa maybe wuxuu noqon karaa telefoonkaaga hadduu flash fiican leeyahay maybe torch noqon karaa si nimka halkan aynu ku isticmaalno waxaynu dhigaynaa talentiga dhankiisa midig oo xaqiisan hore ah si uu iftiimiyo background-ka yani shadow-ga ku jira marka waxaan ku qarananaa kana waxaan ku qaranaa buugan yar ama waxaan ku qaranaa shaygan halkan aynu ka hor dhignay ee waraaqada si uu u qariyo okay taas markaynu sameeyno waxaad arkaysaa markii hore inuu shadow jiray laakiin markaynu saa u dhignay waxaad arkaysaa nimkana inuu shadowskii khafiif noqday oo u yaraaday taasina waa mid kale marka intaas ayaa ugu muhiimsan setup-kan ay maanta fadhino interview-ga inaan isticmaalo inta markaad samayso waxay noqotay sidii aad duubi lahayd bonuskaas waxa weeyaan sidii aad duubi lahayd inaad samayso kamaradaada in aad dhigto mar walba halka ku cagsiga ah ama se yani ka soo horjeeda key light-ka halka dhigayso waxaan kugu dhigi key light-ka waxaan dhignaa qaybta bidix imka tusaalahaan ama qaybta midig waa dhigi kartaa kolba laakiin waxaad dhigaysaa qayb yani subject-kaaga dhinac baad ka dhigaysaa 45 degree buu noqonayaa adaan kugu dhigi korna waad uga dalacaysaa marka sidaas si lamid oo kala waxaad dhigi doontaa kamaradaadana dhanka midig imka oo qaybta shadows-ka ayaad ka duubi doontaa talentigaaga marka Hollywood-ka oo dhan saas ay isticmaalaan oo waxay kaga duubaan mar walba qaybta shadows-ka u fiirso film kasta oo kasta soo duub nooc soo nooc doona noqdo waxa laga duubaa qof markasta waxa laga duubaa dhanka iyo qaybta shadows-ka dhankan highlights-ka laga duubo sababtoo aad ka duubto waxa arkaysaa inuu noqonayo flat-kuna waa inuu noqonaa oo waa kaynu ka cararayno oo waa kaynu doonin subject-kiina 3D aan ka dhigno marka u fiirso markii hore sidan ayuu ahaa interview-ga intaynaan bilaabin ama light-ka intaynaan hagaajin noocan ayuu u ekaa imikana one click ayuu ku noqday noocaas oo kale difference waa day and night difference weeyaan marka waan kuu sheegay haddaad iPhone sidata xitaa oo iPhone ku duubso wax iPhone-ka haddaad maanta light-kiisa aad qurxiso oo light-ka hagaajiso siinkaaga ayaan ka wadaaye wuxuu noqon doonaa video top ah video cinematic video 3D video loo baahay noqonaya laakiin kamarada nooc red magnetic nooca loo yaqaan waxa ugu sareeya waa red camera ama red Gemini waa ugu sareeya noocaas oo kale dad isticmaal soo light-ka uu buur yahay kun jeer ayaa la arkay ilaa tijaabiyay marka uu noqonayo video aan qurux badnayn loona bogin inta aynu ogaan marka video-ga saxaabta waxaan rajaynayaa video-ga yara kooban in oo iidan afacay wax badan aad ka faa'iiday muddadii ugu dambeysay waxyaabaha aan ku maqnayn waa xawayaan shay insha Allah inoo soo socdo oo ku mashquulsanayn oo project aan idin soo wadnay weeyaan dhawaana waan idin shaacin doonaa so stay tuned yara sugna oo iga warsuga insha Allah hadii la yiraahdo hayni degdegsanina hayni raagsanina waan noo soo wadaa shay walba qurux badan oo waqti u qaata marka sababtaas iyo shaqooyin kale oo ku wada jiray ayaa isku yeeri kari wadi waayay marka insha Allah sida caadiga ah
maalintii weekii laba xaba ama hal video way noo soo gelin doonaa as much as possible haddaanan projectkeeda aan ka soo horeynin oo aan idinla wadaagin haddii la yidhaahdo marka inta video inooga ekaado aad baan u salaamayaa saaxiibkii Cadnaan oo interviewga maanta noo ogolaaday inaanu intaan aynu samayno job shadowska final videogana insha Allah wada daawan doontaa so guys videoga intaan inooga ekaado waxaan rajaynayaa wax fiican ka faa'iiday videoga yara kooban job shadowga in lightingka kaga hadlina ama cinematographiga wuxuu noqon doonaa silsilada fara badan oo inoo soo socdo lightingka khuseeya haddii la yidhaahdo aad baan kaaga mahad celinaya waqtiga fiican videogana dadka hesha waxaan ka codsanayaa like saarto sidoo kale subscribe tana channelka oo nagu soo birto videogana soo socda inta ku kulmi doono waa Shakuur Birashood leh peace السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا كوريدا فايز كولج واحدة هرمرينتا آذنها Department of Human Development Department تيجن أما واحدني واحد يرد سارسا هرمرينتا بني آذنكا كوبعينتا كراتكا يسر وقادتا شخصيتا قفكا أرديدا برتا علومتا هرمرينتا آذنهو واحد أودو يالنيان إني هرمريان يجا نفتودا إيانا فاهدتك كلا واحدا مادوينka iyo courseska lagu qaadanayo waxa kamid ah goal setting and life management oo ah dejinta ahdaafta iyo maamulka nolosha critical thinking and argumentation fikirka tolmoon iyo nidaamka doodaha confidence building and stress management maamulka maareynta stresska iyo isku buuqa iyo sare u qaadida kalsoonida ama dhisida kalsoonida qofka leadership and management maamulka iyo hogaaminta fundamental of psychology asaasiyaadka culumta nafsiga iyo life coaching oo tan ka caawin doona course-kana inaad noqoto life coaching ama qof bedela dadka kale noloshooda ku tababara ama tababara nololeed ku soo dhawaada waaxda horumarinta aadanaha fadlan isdiiwaangeli dibloomada Human Development-ga si aad u horumariso naftaada iyo nafaha kumaan ku dhalinyarada waad mahadsantihiin بالآذنك سروا قادة شخصيتها بخاصة فرسعنا أنا دماغي مرة صعبة هوالا فيديو كمان يقعد عامل ضد الله يعياري وقتي توصل